Soomaaliyeed waxa gacanteeda soo galay buug ay soo saartay wasaaradda haweenka lana soo marsiiyay golaha wasiirada ku saabsan ama ciwaankiisu yahay siyaasadda qaran ee genderka ama jinsiga. Buugaas markaan akhrinay waxyaalaha khilaafsan shariicada nooga soo baxay oo aan munaasab ahayn waxaana aan maqalnay in buugga la ansixiyey oo golaha wasiirada soo imaartay ansixiyeen ayaan maqalnay. maxaa ka mid ah qodobadaas? waxaa ka mid ah buuggaas inuu dalbanayo in xukuumadda Soomaaliyeed ay ansixiso dhammaan sharciyada caalamiga ah iyo kuwa heer gobol ah oo la xiriira dumarka iyo maaragtay xuquuqda dumarka ay leeyihiin iyo isagoo aan kala saaraynin waxay diinteena waafaqsan waxay diinteena khilaafsan gaar ahaan anagu waxaan u naqaanaa ama caalami ah heshiiska siida oo lagu soo kabsho marka biciisa la sheego oo macnihiisu yahay ittifaaqiyada caalamiga ah oo ka soo horjeeda dhammaan haybsooxa dumarka waxa loo yaqaan marka siidaaw oo ittifaaqiya caalami la yaqaan weeye culimadu caalamka islaamiga aad bay uga hadlaan ka soo saaray intaasoo bayaan ama intaasoo fatwa laga soo saaray inay tahay ittifaaqiyo khatar ah oo jiritaanka qoyska muslimka ah iyo xaq ay isku leeyihiin iyo ishaysiga bulshada muslimka ah oo ku dhisan ixtiraamka kala dambeynta ku dhisan iyo qadarinta iyo ku jirta la buunbuuninhayo dumarka laguna tarbiyanayo inay ka talaabsadaan waalidkooda iyo nimanka qaba ka talaabsadaan oo la siinayo xorriyad dhibku ayaga laftooda. maxaa kaloo shareecadan waafaqsanayn oo ku jira siyaasadan ku saabsan jinsiga ee dawladdu meel marisay? waxaa ka mid ah inay leeyihiin waa in maaragtay dhammaan gudniinka gabdhaha ama hablaha la diidaa xataa kan sunniga loo yaqaan oo dembi laga dhigaa qofka rabaa maaragtay xagudo ka rabana iska dhaafo laakiin dembi laga dhigo oo qofka xataa sunni aan u gudaa inuu dembiile yahay ka noocaas oo kale arrin diinta islaamka maaragtay ku jira maaha waxaa kaloo ku jira maaragtay da'da caruurta ama da'da maaragtay lagu guursan karo ama da'da qofku ku qangaarahayo in maaragtay da'da maxaan gaalada ay wadato la hirgeliyo oo 16 ah taasoo diinteena khilaafsan meel aan ku oolin. war-saxaafadeedka waan akhriyay waxaa kaloo ku jirtay qodobo ka hadlaya dadka isku jinsiga ah iyo arrimo kale xagee ka keenteen? waxaas waxay ku jiraan ittifaaqiyada sidoo kale ku jiraan sida kelimada gender la yiraahaa iyo kelimada la yiraahaa jinsi la yiraahaa ama sex waa kala labo. gender waa nooc marka nooc waxa weeyaan waa rag waa dumar iyo waxaan ahaynba ba soo galaya marka waxaan ahayn yani qofka aan rag ahayn dumarna ahayn wax kale iska dhigay qayb kale way saddexaad soo biiri karta marka waxa weey waa qayb furan oo sidii hadda loo cayaaro iyo sidii hadda dadka laga dhigo ama dadka maxaan ku raaa loo bedelo waa soo galaysa marka waxa weeye in xorriyadda zinada la furo baa ku jirta in aan gabadho ayadu isguurin karto aabba aan loo baahnayn aan sheekh loo baahnayn aan waxba loo baahnayn waxaasoo runtii oo maaragta la oran karo adduunka meel ka jiraan ma jiraan bal oran karaa ayaa ku jira walidaalika xataa maraykan waa diiday ma ansixin xataa Vatican oo gaala ma aysan ansixin marka in Soomaali hadda lagu ablikeeyo ama lagu khasbo oo dad muslimiin ay waxaasoo kale maaragtay ay ka codsadaan xukuumadda Soomaaliyeed inay wax ansixiso ayada Vatican diiday xagee loo wada? sheekh Bashiir dadka idin dhaliila waxay leeyihiin waxaan oo dhan waxaad u soo maraysaan inaad haweenkii gacan gelisaan oo riixdaan oo inay siyaasadii ka qayb galaan oo bulshadii arrimaheedii ka qayb galaan ayaad waxaan oo dhan uga dan leedihiin. midaasu sax ma aha anagu waxaan leenahay haweenka kaalin weyn ku jiraan kaalinta ay ku jiraan baa ku badan ba ayay ku dayaxan yihiinba guriga ay joogaan bay ku dayaxan yihiin caruurta ayay ku dayaxan yihiin marka horta caruurta ay ku dayaxan yihiin horta laga kaalmeeyo aqoonta laga kaalmeeyo caafimaadka laga kaalmeeyo baahida dhabta oo jirta hal la daboolo baahida dumarka maanta siyaasad ma baahida dumarka maanta waa caafimaad waxbarasho wax maxaan ku maaragtay waa ayagoo daryeelo ayagoo gurigeeda maxaan ku lagu kaalmeeyo weeyaan ayagoo guriga la xiro ma marka guryaha la xirayo oo dumarka leeyahay shaqo ma haysan banaanka imaada marka san diidina dumarka shaqo waa hayaan shaqada ay hayaana waa in lagu ixtiraamo lagu kaalmeeyo